إن كعنا واجب نوا إن دجالنا واجب نوا إن هريان كميسيا حسن الشيخ أنا سكتورنا أي واجب نوا ما عشان وحلا في ذكر معها وحلا تقال ذكر معها وأقولني كميسيا Somalia dalkan waa la iibinaya annagana waa nala baabiinaya ma fiirsanayna maxaan ka tashanayna maxaan u fadhinaa maxaa loo misaagi leeyahay maxaan ummadda Soomaaliyeed ka dhigay dhagool wax magarad fadhiid iyo wax qabad la'aan maxaa keenay in dowladeennii waddagumaysiga lagu soo duulay ma waxaan siinaynaa danayse aan qaadi karin mas-uuliyadda ummadda Soomaaliyeed ma waxaan siinaynaa nin raba inuu na iibsado sida dhulka ugu galaayo waa mahadsantihiin fadhiista aada u mahadsantihiin وقال يهيلو أهلا بمهسنتين وقاسا اسمه من ذلك على حكومنا إن شاء الله تعالى ملفين الشيخ شريف مشاركين تملفينياش محمد على ملفينياش رئيس الوزراء شهري مرشا قرنك مرشا سلطة بحنتا اللي بعنا قرنك اللي وضع أقل وبرد بالشرع وبياش نقلك مشاعرنا بعد صحافة مرتي شرفة نوع والبوء تهاي منصبك يدرجة الكفريان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وياو أنا وياي إبكي وأنا قبضتي قارهان دتك نويكا هويوينكا الصوماليات صدر يشان سنة أي تاجيه وحين تاجيه حلقة حوتي وحين تاجيه بركع وحين تاجيه دقارة حمى وحين تاجيه أبار وحين تاجيه علاق وحين تاجيه أساي وحين تاجيه جيري وحين تاجيه قبل دل كان مركع هو يدي الصومالية الغدر مناي ودولة الصومالية أي دولميس دجال سكري وقصة صبرنا لبعتوين كان أو إلهي أمريكي كوي وقصة صبرنا لكن ما قصة بركنا دولة دي أنو دلنا أنو دمنا أنو تاجنا أن دافعنا إن أي قريها نجسارته وعروتنا يعني تينا بركع الصبرنا كما دكتور haddii aad isgarab maaragtaad kaysto adigoo suuqanaynaya inaad Soomaali tahay inaad hooyo Soomaaliyeed tahay inaad xaquuq badan leedahay inaad mudan tahay in lagu badbaadiyo oo dowladdaada ku badbaadisana wiilka adiga aad dhashay intay hubka ugu soo dhiirto oo xabadaha ugu furayo dhibaatada Soomaali ku dhacday nolosha haddaa idhaahdo ma soo marin ma dembaabayo sababtoo ah meel kasta oo nuweylkii daadsan yahay oo dhibaatadii iyo rafaadkii ay carruurta ku korinayeen gabdhaha Soomaaliyeed ayaa loogu galay oo guryihii ay ku jireen iyaga carruurtoodii laga saaray ilama qumana marka inaan ka tashano ma dhici karto inaan ku aamusnaano waxay u baahan tahay wax qalad muuqda استاذ موقدا بنامبح موقدا يدرك شعب الصوماليين إلى استعلان والموجيان دولة تونسية يدرسها صوماليا واحد كلها قبلها واحد بلدية يهونيين الصوماليين واحد جالسية ما أنت ماشي قارتي ويهونيين الصوماليين لكن سيدي كل سنة حبتها توصل
قبل يوحي كجران لباتن جوبتا أو علم وقراريسا أو ذن حيسا يسنجرين معان كتشرينا معان وفقنا معان لو مساقي لا يهي معان ومدى صوماليا كدقين دقول وحمقات فدين يوحق والله محاكيني إن دولة ديني والله يسرح المسلم كلي والله هذا الكويل كعالك كهذا وشيغي أو يبرا الله فيرسلو dhulka laga barakicinayo dadka masaakiinta ah ee Soomaaliyeed ee haweenkii caruurta ugu horeeyaan amaysan qaadanaynin ganacsatada aan ereynayno ee shisheeye loo gadaya ma dalkeennii oo la dhacayo oo sidaa noogu dulmaayo ayaan la dareemi karaynin oo aan la fahmi karaynin hadalkaa wax weyn ayaa iga baxay dalkan waa la iibinayaa annagana waa nala baabiinayaa ma fiirsanayna shalay gumaysigaan kala dagaalanay calanka iyo dowladnimada iyo madax banaanida aan usoo dagaalanay ma waxaan siinaynaa danayske aan qaadi karin mas-uuliyadda ummadda Soomaaliyeed ma waxaan siinaynaa nin raba inuu na iibsado sida dhulka ugu galaayo maxaa haray oo sugaynaa shalaba markii gumaysiga lala dagaalamayay gabdhaha kacay maxaan u fadhinaa annaga laftigeena inaan kacnaa waajib nagu ah inaan dagaalanaa waajib nagu ah inaan heeryada gumaysiga oo una xasan sheekh aan iska tuurno ayaa waajib nagu ah ma aha sidaan wax la fiirsan karo ma aha wax loo dulqaadan karo ma aha waa dulmi meel uu ka socdo ilaa iyo hadda ninbaa wuxuu yidhi hashuumaankayga garday ee mamisaabay dhaqday markay dhinac loogu bixi weeyey dhulkan uu lagu foogan yahay oo dadkii lahaa oo masaakiinta ahaa oo hooyooyinku ugu horeeyaan oo hooyooyinku ku jiraan oo saqiiradu ku jiraan xabad dabada laga gelinayo oo cadafka lagu qaadayo waliyaa laga galayaa soo ma jeediin ficilkuusan ficil Soomaaliyeed ahay ma aha ficil Soomaaliyeed waa ficil gumayste waa ficil raba in dhulka Soomaaliya nalaga bixina nalagu sii baabi'iyo isil iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed annagoo danahay gabdhaha Soomaaliyeed waxaan qabnaa in la soo baxo Soomaaliyadoo midaysan iyadoo meel uga soo wada jeeda iyadoo aan ka soo baxaan dhalinyarada iyo inta kale ee joogta dalka in cid haraysa aysan jirin war ciidamadan aan dhalnay in dhibka u soo marnay ee aan garab taagnayn ee aan dhinac walba ka difaacaynay ee aan u barbaarinay inay calanka iyo ciidda difaacaan ee annaga hubka inta nalagu soo dhiibo marasta iyo masaakiinta lagu barakicinayo iyada laftigeedu waa in dib looga xisaabtama waa in hooyo kasta ay wiilkeeda la hadasho una sheegto xaqdarrada inuusan qayb ka noqon dalkana la xoreeyo oo laga difaaco dhibaatada maanta in loo istaago inaan badbaadno oo aan ka badbaadno gumaysiga guracan ee lagu wada Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato gumaysigu ha dhaco gumaysigu ha dhaco gumaysigu ha dhaco Soomaaliya